صاحبي خالد waa ilaahay halka kama boodi kartid aniguna xulay uu ku boodi karaa niyow nin dhalinyaro ah uu ku boodi karaa marka fadlan ka boodi ila arka la ka bood Suldaan Bushaawiyow laakiin sida uu soo noqon lahaa dhibtu ka taagantay halkana soo maraysa qodax iyo waxaasna ma laha runtii meelay raska asla weeyaan beautiful لا شاي قمر كتجينا فيد كم كتجينا قوتن وتضبطي هبيني ما يمكن عنا وانقر حامية سيدا أركنت القبر عنا وانقر حامية سيدا أركنت القبر إلو قال ويا حد باقي سرور صدق نفسي هيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قيمها يقايا سو دhowaada daawadayaal waa saaxiibkiin Bashiir Taani oo idin ka imanaya isha goobta waxay kamid tahay meelaha ugu dalxiiska badan Soomaaliland meelaha loogu jecel yahay ay kamid tahay waa goob gariina waa goob biyo durdurka u socdo waa goob jawi macaan iyo hawo macaan in marka hadii aad nagu cusubtay nagu soo biirkamid asxaabta nagu xidhan waxa idin soo duubaynaa jawiga meeshan dad badan dhalinyaro badan baa meeshan timaada jawigooda ku qaata waxaan isla soconaa Khalid Travel and Tourism baan isla soconaa sidoo kale Suldaan Bushaawi baan isla soconaa in marka let's go waxaanu ka baxnay magaalada Hargeysa salaada casar ka bacdi waxaanu u sii jeednaa isha goobta oo kamida meelaha ugu dalxiiska badan Soomaaliland waa goob cagaar ah dhirtuna aad ugu badan tahay ka mamnuuca in dhirta laga jaro sidoo kale waxa leedahay goobo biyo xidheena ah waa goob runtii marka aad timaado aad dareemayso jawi wanaagsan iyo inaad dalxiis ku jirto buuqa magaaladana aad kaga nasan karto hey bambaram عنا وانقر حامية سيدا أركنت القبر عنا وانقر حامية سيدا أركنت القبر إلو قال ويا حد باقي سرور waxaan isla soconaa oo maanta halkan ii keenay anigoo ah Khalid Tourism and Travel hadda waxaan joognaa afeefkii hore ee isha goobka halkii laga galiyay oo kamid ah meelaha kale soo Hargeysa soo asriya tagaan ay ku soo xayaadaan waqtigooda ku soo qaataan isha goobka waan soo tusnay markaan galnaa marka soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba haddii aad doonayso dalxiis in aad soo dalxiisto oo meelo qurux badan lagu geeyna hamoogaan Khalid runtii wax weeyaan inanka u haysta maanta magaalada Hargeysa dhinaca dalxiiska haday noqoto let's go guys waxaan idin haynaa muuqaal aan inaba caadi ahayn Khalidow dadka maxaa leedahay meeshan maxay caan ku tahay meeshan waxay caan ku tahay meesha waa meel green ah oo qurux badan oo dee waqtigaaga aad ku qaadanaysid haddii casriyahaaga soo qaadanaysaa shaahaaga yar waxaaga yarba soo qaadanaysaa familkaaga soo kaxaysanaysaa jawi degan cid ku buuqaysa cid ku qashqashaadaysa wax dhiba male waa meel lagu tala galay markaad magaalada stresskeeda aad ka soo yargabanaysid inaad waqtiga ku qaadatid oo gariina oo biyo fadhiyaan aad iyo aad bay qurux badan tahay wayna tusi doonaa imika waan ku soconaa xeer baa noo hadhay imika xagga dad baa jooga oo waqtigooda ku qaadanayo magaalo ka soo baxay hees samaacadooda yar bay iska soo qaateen rag iyo dumarba meesha way soo duxeystii karaan marka soo وانقر حامية سيدا أركنت القبر عنا وانقر حامية سيدا أركنت القبر إلو قال ويا حد باقي سرور نفسي هيك قابلنو على بكيتي وين نفسي هيك قابلنو على بكيتي وين كبدا جعلاوي ميادي قرقاري الله 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 أيد
نفسي هيك قادنو على بقيدي وين نفسي هيك قادنو على بقيدي وين صاحبي halkan waxaan kula kulanay dad badan ayaa halkan jooga oo aan runtii doonin in muuqaal laga duubo oo jawigooda ku qaadanaya meeshan waxay leedahay biyo durtura ayaa iska socda oo rabaaniya ma sha Allah waxa weyn biyo lagu shubay maaha waa biyo roobku markuu da'o halkan iska jooga sanadka oo dhan ma sha Allah waxa weeyaan waa goob green ah waxay kaga duwan tahay meelaha kale waa cagaar weeyaan dhir miidhan ba ka buuxdo halkan dhirta waa mamnuuc in la jaraa sidii noo sheegay waxa weeyaan runtii goob aan aad iyo aad uga helay anigu haddaan ogaan lahaana markii hore aan waddanka yimina meeshan hore jirto runtii maalin walba nima laha marka haddaad waddanka ku cusub tahay you must come here taasaan idin leeyahay waxa barnaamijkii la daadihinaya sidii idin sheegayba Khalid Travel and Tourism ayaa la daadihinaya ina warsha saaxiibayaal wali waxaan ku suganahay isha goobta halkan waxaan kula kulmay mid kamid ah dhalinyarada halkan u soo dalxiis tagay ama jawi wanaagsan ku qaadanaya magacaaga sheeg walaal barkhad walaal maanta halkan aad joogtaa maanta maxaad halkan u timi maanta inaan jawiga soo bedesho haye marka dee greenkan iyo dhulkan cagaarka ah waa bal magaaladii iska soo baxo soo jawi bedelo aad iyo aad marka dalxiisaama ma tani ma markii kugu horeysay halkan timaadaa ma wallahi badan kama imaadaa wiigiiba mar aad waan imaadaa bal meeshan quruxdeeda iga hor saaxiib meesha wallahi waa meel loo tago wanaagsan oo wax ku fiicantay markaad magaalada aad ku soo buuqayo waxaad iska imanaysaa jawi soo qaadanayso inaad halkan timaado jawi soo bedelato goorma timinta joogtay halkan iminka waxaan joogay iminka saacad way afartii meelaasay asal walaal aad u mahadsan tahay jawi ka jiri mayno laakiin saaxiib inaad naga aqbashay inaad waraysi ka qaadno aad baad ugu mahadsan tahay nafsi hayga gaadano على بقيدي وين نفسي هيك قادنو على بقيدي وين كبدا جعلاوي ميادي قرقاري انا لغوا الله نفسي هيك saaxiibayaal halkan aad arkaysaan waxa weeyaan wali isha goobtan ku suganahay halkan aad arkaysaan biyada ay hormaraya dadku inta halkan kuraasidii soo qaataan iyo miisaskooda ay waxay sameynayaan halkaas qadadooda ku cunayaan sharaabkooda ku cabayaan jawigooda ku qaadanayaan biyo qurux badan waxa ku leeyahay leedhuna marka soo dulmasho ay wajiga kaaga dhacayso oo aad iyo aad u jawi macaan oo fiidoo lagu soo koobayna ay ku haboontay inaad timaado aad aragto weeyaan maxaa ay soo garo wax weyn dhulkeena nimca fadhida marka buuqay magaalada iyo waxa iska soo dhaafa meelaha jawiga macaan ee waxaan ku leeyahay stress free ga iskaalaya halkan oo kale inta caanageel soo dhigato ama shaah caanageel leh ee halka ku cabaysaa cawdaada dhiganaysaa waxaan ku leeyahay lagama sheekayaan hadal kuma soo koobi karno haddii aad waddanka ku nooshahay iyo haddii aad qurbaha ka timiba waxa weeyaan halkan you must come here let's go انا لغوا الله نفسي هيك قادنو على بقيدي وين نفسي هيك قادنو على بقيدي وين قبل جعلاوي ميادي قرقاري bayaal iminkana waxaan la kulanay mid kale kamid ah dhalinyarada halkan maanta jawiga wanaagsan ku qaadanaysa walaal assalaamu alaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh waan dhawahay aad baan ugu walaal waxaad ii sheegtaa maanta halkan isha goobteen ku kulanay ka waran walaal jawiga meeshan wallahi jawiga jawi la qiyaas karay ma waa jawi aad u qurux badan hawo ka dhacayso leer ka dhacayso aad u macaan waxaan oran karaa jawigan oo kale qofka maartay stresska iyo maskaxda ay magaalada buuqa magaalada in maxay tahay maskaxda ka galo problem ku yahay halkan oo kale iska yimaado maxaa dadka ku leedahay dadkeena inay halkan oo kale yimaadaan dadkeena waa aad baan ugu dhiirigelinayaa waxaan leeyahay waa iska soo jawi bedesha light iska yimaada dhirta iyo dooga iyo greenka maxay tahay google iska soo dhigta iska leersada maantii waa la iska seexdaa waa dad baa xitaa qadada ku karsada yimaada ma sha Allah marka anigu makaayla 1 hour baan joogaa jawigeeda waa nafs baan dareemayaa absolutely aad dad walaal ma hasantahay saaxiibayaal halkan waxaan kula kulmay qaar kamid ah hablaha magaalada Hargeysa oo halkan u soo dalxiis tagay walaal magacaaga ii sheeg Sahra adigana Fadxiyola walaal ka warama jawiga maanta jawiga ma sha Allah aad buu qurux badan yahay adigana walaal ma sha Allah wallahi jawiga hadal ma leh ma markii idinku horeysay halkan timaadaan ba waa markii labaad waa markii labaad ha marka walaal meeshan
maxaad ka leedahay waxyaabahay caanka ku tahay waxyaabahaad kaga hesheen bal ii sheeg waxaan kaga helay waa doog meedhan haye hargeysana ma laha doog fara badan haye waa meesha keliya xagan adigana meel jawi aad u fiican oo bilaa buuqa oo jawi fiican ku qaadan kartid buuqii magaalada iyo wixii baad ka baxaysaa aad iyo aad iyo biyaha yara quruxda badan iyo biyaha quruxda nafis waad iska nafisaysaa hatta qofkii xanaaqsan iska farxaya markaad ka nimaado aad baad mahadsantiin jawiga kama jeedayno dhammaantii waan islaamay markaa muuqaalkii si wacan baad uga soo dharagtay maan filayaa dad la waraystay meelaha ugu qurux badan korkana la ka tusay dholkii meelaha biyaha leh qaybta greenka meeshan qof walba waqtigiisa ku qaadanayay ku casriyeynayay oo waqtigiisa ku qaadanayay marka meesha waxay ka mid tahay meelaha loo casarkii la imaaday ugu qurux badan wadankeena dadkaana saa u barbaarin waa meelaha wadanka ugu quruxda badan aan odhan karaa dee qaaradda Afrika ee lagu travel gareeyo lagu dalxiiso meel kaste wad helaysaa okay marka haddaad u baahantahay dalxiis iyo wax walba anigaad ila soo xiriiri kartaa Khalid Tourism and Travel TikTok haddaad ku qortay YouTube labada wad helaysaa marka dhammaantiin soo dhawaada Nikolay yaal waxaan soo gaarnay guntiga gabagabadii barnaamijkan oo idinka imanayay isha goobta haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir kana mid noqo asxaabta nagu xiran halkan aan cabaar jawi ku soo qaadanaa ilaa cashaayigu marka tegaynaa fiidkan ka tegaynaa goobtan waa 7 habeenimo iminka waxaanad moodaa inaad dadku aad bay uga buuxaan ilaa qaar ba ilaa 12 habeenimo ka tegaya marka anagu halkan jawi ku qaadanahay waxaan idin rajaynaynaa jawi wanaagsan sidaa iyo kulanti dambe oo xiiso leh waxa barnaamijkan fududeeyay saaxiibkay Khalid Travel and Tourism company-giisa fududeeyay aad iyo aad wada mahadsantiin let's go dadka ma ka soo duunaa ardayda qalin jabinaysa dadka